السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإذن سلامة دمانتينا ميل baa joogtaan hadda waxaan sii socdaa xarunta jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Vienna marka la socotiin 3 maalin ka hor marka ahayd maalin Sabti habeenkii 9 saac xarunta jaaliyadda Soomaaliyeed dib qabsaday ama dib ka kacay marka qofka dibka ka kiciyay ama dibka qabsaday noocu yahay anaga ahaan ilaa hadda noo muuqato laakiin booliiska baaritaan sameeyay baaritaankiisa adiga shalay soo xiray لكن جواب رسمي أو دميسترن إلا هذا أنا جمهرين مركا محيكو صوت دماتي يوحيدا هذا أغاني مركا حرون تتكون هذا جواب رسمي رسوسية أما جودي جالي هذا جواب رسمي أي هلين كاسان أغاني هذا إن شاء الله هذا مسيس عنا يصلو كله ياسمي قفك سمي يويا هاي محاكدن بي وحاسدن محيكو جرتا قعنت بوليسكا مركا بوليسكا سووا شيء بارتانغ سوود مي marka hadan insha Allah waa fiirnayna haday gudiga information ugu dambeeyay ay hayaan ama information la siiyay oo qofku waxa sameeyay hada information idinka soo kale jaaliyada Soomaaliyeed oo magaalada Vienna caadi ahaan waxa leedahay ilaa adiga 400 oo member ah marka 400 oo member waa adiga 400 qof oo ku xiran family dhalinyaro ah oo ku xiran jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Vienna marka soo kale jaaliyada Soomaaliyeed ama xarunta Soomaaliyeed waxay shacabka Soomaali u qabata caadi ahaan aad ayay وفر بدن تاي ما حرونت جاليد Soomaaliyeed in loo tagakili in adiga lagu cabeeyo shaah lacaw ama lagu qaday cunto lagu cuno laakiin misaayidka ayaa meesha ku yaalo oo adiga Soomaalida isku iimaanaysa tukanayso haday taraawiix ahayd haday salaad jumca ahayd haday baasha loo tagay tartan quraanada lagu dhiganayo kulamihii wax dhan wax lagu sameeyo meesha lagu sameeyay waa jaaliyad Soomaaliyeed marka hada lagu qabto seminar hada qof wax sharxayo hada qof wax soo bandhigayo wax walba oo Soomaalida quseeyo meesha lagu qaban jiray waa xarunta jaaliyad Soomaaliyeed marka xaruntu waxay qabataa intaas kali ma ahan laakiin shaqooyin kala duwan ay qabataa oo ugu muhiimsan maanta qof maanta Soomaaliyeed ama dhalasho Soomaali wato ama asalkiisa Soomaali ah oo ku nool wadanka Austria gaar ahaan magaalada Vienna ku geeriyooday qofka ugu horeeyo oo information ka jirinayo dawladda la xiriirayo waa jaaliyada Soomaaliyeed oo soo kale qabri u iibinayo maanta qofka Soomaali yahay Soomaalida qabri u iibinaysa qubuurta muslimiinta ah oo dabagalaya waxaas dhan waxa sameeyay waa jaaliyada Soomaaliyeed marka taas kali ayaa caadi ahaan nicmo ah maanta qofka Soomaali wadanka joogo inuu ogaado ama uu og yahay maanta qof iga dambeeyo hada wax igu dhaco ii sameyn karo ama ii qaban karo kamid ahaan maanta inuu qabri ii iibiyo hada maanta ku geeriyoodo wadan ajnabi ah oo qubuurta gaalada lagu duugeerin sidoo kale dadka xanuunsan oo adiga kaligooda kaalmo ku jiro hada la soo xiriira xarunta qofkaas joogo way daba gashaa way fiirisaa isbitaalay u raacdaa ama isbitaalaha aada dad badan jira caruurtooda qaaday caruurtooda soo celiyeen marka caadi ahaan shaqooyinkay qabato way ku mahadsan yihiin aad iyo aad u fiican tahay qof maanta xarunta ka shaqeeyo oo 1 euro ama $1 ku qaadso kale ma jiro qof meesha wuxuu ku shaqeeyaa adiga free ku shaqeeyaa lacag ma qaato wuxuu taagan yahay kali dadka intaan caawin karo aan caawiyo way ku mahadsan yihiin dhamaantooda sidoo kale ka dhalinyaro ahaan caadi ahaan xarunta jaaliyada Soomaaliyeed wax badan aan ku qabsan jirnay inaan meesha ku baashaalno aan quraankeena ku akhrisano aan ku tukano tartamo aan ku sameeysano sidoo kale seminaaro maanta qof hada wax yaqaano wax kale u soo bandhigayo seminaaro meesha aan ku qabsan jirnay marka jaaliyada guwatay caadi ahaan soo laabadkeeda ama inay soo laabato siday ahayd horta wax fudud ma ahan leeno gubitaanka ay guwatay sawiraanka aragnay iyo banaankeeda mar aad banaanka arkay way baabaaday way dhamaatay dhamaanteeda eberayna qatay هذا صار أرض إن شاء الله على فيديو قدامات كيس مكان هذا حرونتها أتنو وإن سندونا سين قطع حرونتها لكن واي بابا ذي واي دماتي وحكة هاري ملهن إن يصولا وتصدق إيه أيكو صولا وتو مدة دير إيه وقت دير إيه خرج بدن أيا قلي دونه لكن حنا لها إن إسقعن قبضان Soomaalidu ku nool magaalada Vienna marka إن شاء الله waxaan ku soo dhawaaday xarunta jaalidan ku soo dhawaaday إن شاء الله فيديو dhamaadkiisa waxaan soo galin doonaa ugu dambeyntii waxay jaaliyada iyo booliiska magaalada ay adiga iskula hadleen haday tahay in uu qof haleeyay qofkaas uu haleeyay maxay ka qaban karaan maxay sameyn karaan iyo haday kaligeeda tahay sidii u arkaan adiga baaritaankooda caamatan baaritaankooda wax ugu soo baxay ayaan isla arki doonaa إن شاء الله ugu dambeyntii videogan سأقول صور أركتين حرون تجاريد وتن وسوق قرني هالكاس ومترو وما ستيشن كترينكا حرون تجاريد أنا واميشان هذا سنة وجودنا وهالكان أو هذيك باب كذي قرنت هاي إستراكش سماج كلتون سبوت فراين
marka ujeedin hilaaca ama dibka galay ama ka kacay soo meesha inuu qabsaday albaabkii daaqadooyinkii dhammaan inta daaqadooyinka dhinacaas waa daaqadooyinka masaajidka daaqadooyinka afan maqaayada daaqadooyinka masaajidkana waa dhinacan kale koratooyinkii daaqadooyinkii oo uunka soo baxay uunka madoweyey daaqadooyinkii suuriyadii meesha way baabaaday leerku waa ifinayo laakiin ziyaado wuu ifinayo dhulka hataa wuu dhamaaday dhulka wuu dhamaaday xaggaas soo duuba marka xaggaas mashaakil haddana okay meeshaan waa meeshii ahayd maqaayada عاد ahaan nal shaqeynaya wax shaqeynaya ma laha laakiin meeshaan dhana ujeediin si muuqato dhulkeeda soo kale oo dhamaaday marka dhulku wuxuu noqday dhiiqo u noqday geeskaana adiga in yar ka wadbaaday laakiin meeshaan kale dhan dhulkay noqotay halkaan miisaa yaalay halkaan dhan miisaa ku xirnaan jiray wax ka badbaaday haba yaraadee ma jiro haddana subxaan allah adiga intay xirneed muddada ay xirneed waa la cusbeeyey wax badan laga dhigay si laha adiga corona kadib bulkeetiyo cusub wax cusub lagu dhajiyey laakiin subxaan allah qadar allahu maa shaa facal qalabkii cuntadii jikadii wax lagu karinayay wax dhan dambas uu noqday wuu madoobaaday waxaaba dhihi kartaa adiga jikada in yar badbaaday oo fiican sidanay ku fiican tahay jikadaada aa ujeediin debdemiskii waxay dartay malahan ayadaa la demiyey xafiiskii يا سبحان الله wax ka hare ma laha intaan ahayn hay wale wax hare ma lahan yani hadda boxyadii wixii dhahay waraaqihii wax dhan waay meeshaan uu ku jiri jiray adiga dharkii dhaqankii iyo wixii soomaalida ay xafladooyin ku dhigan jireen wixii ka haray kooxda Soomaali dharkii wixii dhaqankii oo adiga gubtay inta ka hartay masaajidkii kaba la'aan la geli jiray maanta dhiiq uu noqday ماشي ولاش فرصتنا ها وماشي ولاش فرصتنا زينات سبحان الله وحدن وبابا
masaajidka uu dhamaaday dhulkaa iga daran aniga oo noqday dhiiqa keliya xaggaas iga bixina naga bixaan ya kutubada ardayda ku baran jireen iyo kutubada qur'aanka subxaan allah kutubada ma guban ya subxaan allah waxa ka haray waa kutubadii ma guban koray ka gubteen way ka madoowaadeen laakiin kitaabka gudihiisa u jeediin ما شاء الله خازينكي cuntada maqaayada lagu keedin jiray asina sidoo kale dhammaan way ugu dhamaatay marka caadi ahaan albaabka dambe oo laga soo gali jiray marka uu xiran yahay waxaa qasab noqotay albaabka dambe oo guryaha inaan ka soo galno leerkan isticmaalay wax kale lagu gali karo malaha meesha waa mugdi wixii dhan dhulka ay noqdeen subxaan allah sida ujeedin hadda xarunta waa ka soo baxay gadaashisa ay ugu muuqato marka gudaheeda marka adiga oo sawirada ay soo direen dhalinyarada maalinta ku waa imaaday gudaha way xirnayd waa gali waayay ama in la gal mamnuuc ay ahayd laakiin marka maanta galay aan gudaha soo arkay marka video wax ka arkaysid iyo marka kale isku mid ma aha dhulkii caada lagu istaagay aa dhiiqa naqday marka uu maleynay wax la dhihi karo kana ka badbaaday ma jiro kuraastii lagu fadhiisanayay ayaa dhilaashay albaabadii miraayadooyinkii wixii wax haray oo ka badbaaday caadi ahaan ma jiro saxda idinku sheegay inaan weydin doono xarunta jaaliyada sidee u dhacday ama haday booliska ka hayaan war ugu dambeeyo baaritaanka iyo waxay sameeyeen waxay ugu jawaabeen booliska way weydiiyeen baaritaankii iyo waxay sameeyeen informationka ugu dambeeyay oo ilaa hadday hayeen inay tahay horta meesha kaligeeda iskama guwanin ee qofka guway laakiin qofka guway yuu yahay lama sheegi karo marka boolisku wuxuu dhahay adiga 100% waa wax la sameeyay sidoo kale naag diriska ah ama isla sarta degan waxay dhahdeen waxaan arkay qof waraaqad meesha ku tuuraayo ama waraaqooyin meesha ku tuuraayo caadi ahaan waxa la dhihi karaa jaaliyada qofka guway laakiin qofka guway ma cad yuu yahay marka waxaan sugaynaa kaliya adiga booliska wuxuu soo saaro ama wuxuu soo dhaho adiga hawsha ama sheekada si ku dhamaato marka hadda maanta la dhaho caadi ahaan xarunta qofka guway ama soo kale xarunta way guwatay kaligeeda guwatay labadaba horta khasaarada ay hadda xarunta ay gashay ama jaaliyada ay gashay khasaaro oo adiga laga soo kabsoonayo mar dhow ama si fudud loogu soo kabsoonayo uma eka ama ma ahan marka sidoo kale dabkan qabsaday xarunta ama jaaliyada waxaa dhici kara inuu anaga noo yahay wax khayr marka waxa aan takraw shay oo khayr lakum yaa og maanta la dhahayo xaruntan aan ka wareegno xarun ka fiican ka weyn masaajid ka weyn aan u wareegno way dhici kartaa marka ma aha waxaan ku hadlayo inay tahay ra'yi jaaliyada ama qof uu ka hadlay ama wuxuu sheegay waa kali aniga waxaan iska dhahayo marka wax sharan aragna anaga inuu ilaahay khayr ka dhigo way dhici kartaa lama ogo warka idinku dheereeyay marka asxaabta familiga gaar ahaan Soomaalida ku nool magaalada Vienna khayr badan ay dhaaf dhamaantiina waa idin salaamay soo kala saddexda maalin oo bisha Ramadaan nooga harayna soo kale ilaahay khayr nooga dhameystiro waa idin salaamay walaalkiina Axmed marka waa inoo muuqaal cusub wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh